waxaa laga soo saaray warmurtiyeed shirkii u diyaar garowga tartanka kubadda cagta dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir oo maalmahan ka socday magaalada Kismaayo. wariye Maxamed Qani Xuseen Kuusow ayaa warbixintan inoo haya. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedyada dalka oo shir ka socday labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo ayaa la soo gabagabeeyay ayadoo laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban ilaa 7 qodob. Khadiija Maxamed Diiriye wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kusimaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inuu guul ku soo dhamaaday shirkii labada cisho socday ee magaalada Kismaayo ay ku yeesheen wasaaradaha dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. wuxuu noogu soo dhamaaday si habsami leh fiican oo aan isku wada afgaranay isla qaadanay isla wada go'aansanay haddii Allah uu dalo ogolaado kulankan wuxuu daba socdaa waa kulankii lixaad ee aan ugu kulmi jirnay wasiirada dowlad goboleedyada iyo wasaaradda dhalinyarada isboortiga. dhinaca wasaaradana waxaa ka socda agaasimaha guud iyo 2 agaasimo waaxid iyo 3 la taliyayaasha wasaaradda kamida waxaan kulligan isku wada raacsanahay warmurtiyeedkaas 7 qodob ka kooban oo uu noo aqrin doono agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada isboortiga dowlad goboleedka Jubbaland. agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee dowlad goboleedka Jubbaland Xuseen Macalin Cali ayaa dhankiisa warfidinada u aqriyay qodobada laga soo saaray shirkan. waxaa la go'aamiyay in 19 November ilaa iyo 1 December ay noqoto keenista iyo dejinta ciyaartoyda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaa sidoo kale la isla qaatay 2 ilaa 5 December inay kooxaha tababar ku qaataan garoonka kubadda cagta Wama Kismaayo. isla 3 bisha waa qorituurka kooxaha si uu u soo baxo jadwalka isku aadka kooxaha. 6 bisha December waa maalin nasasho. waxaa la go'aamiyay in 7 bisha December uu si rasmi ah u furmo tartanka kubadda cagta ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. waxaa la isla go'aansaday in dib loo dhigo qabashada shirweynaha qaran ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Muqdisho ka furmi lahaa 30 November waxaana laga dhigay 17 ilaa 20 bisha December sanadka 2017. waxaa kaloo la go'aansaday maadaama ay bisha November suurtagal ahayn in la qabto daahfurka siyaasadda qaran ee isboortiga oo ka dhici lahaa Cadaado caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Galmudug in laga dhigo horaantii bisha Janaayo 2018 sanadka cusub haddii Alla awoodo hadduu Alla idmo insha Allah wabillahi tawfiiq. xildhibaanad Luul oo kamid ah xubnaha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya la socday wafdigan wasiirada ayaan weydiiyay aragtideeda qodobada laga soo saaray shirkan iyo qabsoomida ciyaaraha bisha inuu soo aadan magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland. shirkan wuxuu ahaa shiraan caadi ahayn waxaan ku faraxsanahay marlabaad wasiirada maanta isboortiga nasiibka u yeelatay gabar banaanka wadanka ka maqneedna aan ahayn sida hanaanka ay u maamulayso maamul goboleedyada iyo wacyiga wadanka ka jiro xog ogaalka ah ee weligeedna kana qaxin qaxootina ka noqon. aad baan u soo dhaweynaynaa waa si macaan oo qurux badan buu shirkana u dhacay waa farxad waa ku kalsoonahay reer Jubbaland inay martigelin doonaan waajibkoodana gudan doonaan. magaalada Kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa lagu wadaa bisha ugu soo aadan ee December inay noqoto bisha ugu mashquulka badan maadaama ay martigelinayso marti aad u far badan ka imaan doonta gobolada dalka. Maxamed Qani Xuseen Kuusow, Jubbaland TV.